kulanti haboon idil ahaantiinba daawadayaal ku soo dhawaada wararkii caalamka ee Alool Media TV. qodobada aanu maanta idiin hayno waxaa ka mid ah haddii Allah awoodda la idmo nin u dhashay dalka Urdan oo Turkigu ku qabtay basaasnimo, ciidamada Azerbaijan oo sheegay in ay Armenia ka qabsadeen dhulkii ugu tirada badnaa, iyo saaxiibadii uu ka dhintay suxufigii Sacuudiga ahaa ee Jamal Khashoggi oo maxkamad Mareykanka la tiigsatay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman. xogtaanu idinka hayno intaynaan barnaamijka u guda gelin daawadayaal waxaanu idinka codsanaynaa in aad haddaanad hore nooga tirsaneen nagu soo biirtid, barnaamijkana aad faafisid oo aad la wadaagtid asxaabtaada si aad uga qayb qaadatid horumarka Alool Media TV. taariikhdu waa 21 Oktoobar. daawadayaal soo dhawaada mar kale. nin u dhashay dalka Urdan ama Jordan ayaa dowladda Turkiga xidhan isla markaasna ku soo eedeeyay in uu ahaa basaas ka howlgalayay gudaha dalkooda oo uu ku joogay suxufinimo. ninkan oo asal ahaan ka soo jeeda reer Falastiin ayaa maalintii Jimcaha ciidamada sirdoonka Turkigu soo qabteen, waxaana Ankara warbaahinta u sheegay in ninkani muddo dheer dabagal ku waday dadka Arabta ah ee xukuumadooda ka soo horjeeda, markaasna hadda ku sugan Turkiga. afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Turkiga ayaa ninkan ku magacaabay Al-Astal, wuxuuna sheegay in ninkani qirtay in uu ka tirsanaa sirdoonka isutaga Imaaraadka Carab, waxaana maxkamad lasoo taagi doonaa toddobaadkan gudihiisa. basaaskan ayaa ku howlanaa in uu soo ogaado in dowladda Turkiga si sahlan loo afgambin karo iyo in Turkigu gacan siiyo dadka Carabta ah ee dowladahooda jecel in ay afgambiyaan. dowladaha Turkiga iyo Imaaraadka ayaa xiriirkoodu ahaa mid aad u xun kadib markii Turkigu taageeray dalka Qatar oo wadamada Sacuudiga, Imaaraad, Bahrain iyo Masar ay ku rideen go'doon iyo xayiraad cunaqabateen 2017, balse waxaa ku cusub in Imaaraadku ku howlan yahay sidii loo afgambin lahaa Turkiga oo ah dowladda keliya ee muslim ee maanta awood iyo qadarin dunida ku leh, ahna ta keliya ee hadda u hadasha dadka iyo qadiyadda muslimiinta. xidhiirka Turkiga iyo Imaaraadka ayaa noqday mid arrinkiisu yahay hadduu sii go'ay kadib markii bilihii lasoo dhaafay ay dowladda Bahrain, Oman iyo Imaaraadku heshiis diblomaasi la saxiixdeen maamulka Israa'iil, taas oo Turkigu cadho ka muujiyay oo uu ku tilmaamay wax laga xishoodo oo aad u foolxun. waxaa kale oo jira in ciidamada Turkiga ay saldhig ka samaysteen gudaha caasimada Qatar ee Doha, taasoo mar kale Imaaraadka iyo saaxiibadiis cadho iyo cabsi ku abuurtay. si kastaba ha ahaatee, xidhiirka Turkiga iyo Imaaraadka ayaa u eeg mid sii xumaanaya, balse waxa aan weli caddayn halka xaajadu ay caga dhigan doonto. weli waxaad daawanaysaan wararkii caalamka ee Alool Media. Hatice Gendis oo ahayd saaxiibadii uu ka dhintay suxufigii la dilay ee Jamal Khashoggi ayaa kiis maxkamadeed ka furtay dalka Mareykanka, kaas oo ku eedeynaya dhaxal sugaha Sacuudiga in uu ka dambeeyay dilkii suxufiga. Mrs Gendis iyo ururo u dooda xuquuqa bini'aadanka ayaa kiiskan ka diiwaan geliyay maxkamad ku taala caasimadda Mareykanka ee Washington. Jamal Khashoggi ayaa lagu dilay gudaha safaaradda Sacuudiga ee Istanbul, waxaana kiiskani uu ku eedeynaya dilkaas dhaxal suge Maxamed bin Salman in uu isagu si toosa Riyaad uga maamulayay dhacdadan lagu dilay wariyaha. safaaradda Sacuudiga ee Washington ayaa diiday in ay ka hadasho, balse qareenada Khashoggi ayaa sheegay in ay eeda ku lug leeyihiin diblomaasiyiinta Sacuudiga ee Mareykanka ka howlgala. Jamal Khashoggi ayaa isagu joogay Mareykanka, balse safaaradda Sacuudiga ee Washington u sheegtay in uu tago Turkiga si uu uga qaato warqado uu u baahnaa si uu u guursado saaxiibadii oo ah gabadha hadda kiiskan wada. soo dirka safaaradda Washington ay suxufiga u soo dirtay Turkiga ayaa qareenadu sheegeen in uu ahaa mid qayb ka ahaa qorshaha dilka suxufiga. haddana waxaynu soo gaarnay qodobadii u dambeeyey warkeena. xabad joojinta cusbeed ee sabtidii lasoo dhaafay lagaga dhawaaqay Nagorno-Karabakh ayaa u eeg mid noqotay in aan waxba ka jirin oo ka hirgelin, kadib labada ciidan ee Armenia iyo Azeeriyiintu ay weli hubka noocyo kala duwan isku garaacayeen. madaxweynaha Azeeriyiinta Ilham Aliyev ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in ay ciidamadiisu qabsadeen magaalooyin cusub oo aad u tiro badan. magaalooyinka lagala wareegay ciidamada Armenia waxaa ka mid ah Abdulrahmani, Ashagi, Fasali, Safarsha iyo qaar kale oo badan. ciidamada Armeniyiinta ayaa iyagu keliya sheegay in
ay weli dagaalka ka qayb yihiin balse ay habboon tahay in dadka la kala gaadho marka la isku dhaco. wasiirka arrimaha dibadda ee Armenia Sohrab ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan 3 dhinac Turkiga, Azerbaijan iyo dad kale oo aanay garanay. dowladda Turkiga oo hadalkaas ka jawaabtay ayaa sheegtay in aanay ku lug lahayn balse dadka kale ee ay sheegayaan in ay noqon karaan bay yidhahdeen malaa'ig alla u soo diray muslimiinta Azerbaijan oo dhulkooda xaqdarro ay ku haystaan Armeniyiintu. dhinaca wadahadallada dagaalkan ayaa u gudbay dhinaca Mareykanka. wasiirada arrimaha dibadda ee Armenia iyo Azerbaijan ayaa la sheegay in ay u socdaaleen dhinaca Washington halkaasna ay kula kulmi doonaan xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo. inkastoo ay gaar u arkayaan xoghayaha waxaa si weyn looga dhursugayaa hadalka ka soo yeedha wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. waa hagaag daawadayaal, wararkii caalamku maanta waa naga intaas. inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaanaal.